madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka dalbaday dhigiisa Shiinaha mar uu taleefanka kula hadlayay maanta in uusan Ruushka siin hub uu u isticmaalo dagaalka Ukraine. safiirka Shiinaha ee qaramada midoobay ayaa isaga oo ku sugan New York waxa uu sheegay in dawladdiisu ay doonayso nabad ku timaada wada hadal. وعس دفئي النادر ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping jimcaha maanta kaasi oo iga wada hadleen doorka dunida ee caawinaada loo geysanayo dadka Ukraine ee weerarka uu ku hayo Ruushka. Shiinaha waxa uu door muhiim ah ka ciyaari karaa xiisadan iyadoo ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga beesha caalamku ay u soo jeedinayso ee Ruushka ka dhankaay ah in la militariga Ukraine la taageero ayaa lagu yiri warkaas oo baxay madaxtooyada Mareykanka ayaa inta badan kaalmada military ee uu siinay Ukraine waxa uu ku sheegay madaxweynaha Mareykanka inay noqon doonto waqtigan 800 milyan oo toddobaadkan gudihiisa la siin doono Ukraine. waxaan si cad u sheegayaa walwalkayaga qotada dheer ee ku saabsan jaanqaadka Shiinaha ee Ruushka iyo saameynta ka imaan karta cawaaqibka ka dhalan kara arrintaasi. sidaas waxa warfaafinta kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka una sheegay afayeenka aqalkaasi cad Jen Psaki oo markaasi Khamiistii shalayta ahayd la hadlay warbaahinta. wicitaankii jimcaha maanta madaxweynaha dalka Mareykanka waxay ahayd fursad Biden uu ku qiimeeyo halka uu taagan yahay hogaamiyaha Shiinaha waxaana jira dabcan taageero hadal iyo mid maqnaanshiyo la'aan oo ah inaysan cambaareynin Shiinaha gardarrada Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah dadka reer Ukraine ayaa lagu yiri warkaasi.